بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم أخيرتك kusoo dhawaada qaybteeni 27 ee programming iyadoo la isticmaalayo Python. Marka qaybtan waxaan ku qaadan doonaa nested dictionary. qaybtan ka horeysa waxaan ku qaadanay dictionary. qaybtan waxaan ku qaadan doonaa dictionary la dhexgelinayo. Marka dictionary markii hore waxaan usoo sameynaynay inaan inta sameyno variable oo kaleeto aan ugu shubno curly bracket ama curly braces kadibna aan key iyo value bixino. keyga wuxuu ahaa string oo kaleeto inta sameyno aan dhigno name kadibna waxaan dhignay key oo ah wax midigta xiga. marka waxa midigta xiga string aan noqon karin data type kalena noqon karin. marka magac iska gelinay kadibna waxaan dhahnay age oo kaleeto agena waxaan ka dhignay integer oo tiro iska gelin. marka dhibaatada waxay ka taagneyd sida lagu soo daawacayo. okay marka aan rabo inaan soo daawaco waxaan adeegsanayo for loop. waxaan dhahay for markaan dhaho waxaan qaadanayay variable oo loopinka aan ku sameynayo kadibna waxaan dhahay waxaa ku dul wareegtaa a. markaas waxaan soo daawacayay a ii soo daawac xna ii soo daawac. maran gareyna marka wuxuu qabanaya kan maran gareyna. okay laba mar oo soo daawacay. marka intaasas dhihi lahayd waxaa ka fiican inaad dhahdid inaa soo daawacday x oo keliya. markaas name bisa lagu soo qabana kadibna kan kale waa soo qabsan kartaa. marka hadda waxaan rabnaa intaas ma aha soo qabashadeeda iyo waxaan rabnaa dictionary si la dhexgelina aan aragno. marka hadda waxaan sameysan doonaa intaan iska tiro variable la dhahayo family. waxaan ku shuban doonaa family waxaa ka koobnaan karaa ilmo sooma iyo aabo oo kaleeto. variable waxaan dhihi doonaa father oo kaleeto key aan ka wadaa string aan isticmaalo father magaciisa iyo kaleeto arasiis in la sameyn rabaa kadib sunday. marka kanaan koobiyeysanayna marka la koobiyeynayo waxaa la dhahaa control D sida lagu koobiyeyna. inta waxaan dhahaa mother f capital. okay meeshan error dhahaa kama iska dhaho kadib waxaan gashana hal cunug baan soo gelinaynaa. okay child aan dhahno. marka waxaan rabaa inaan intaan father inaan magac iyo sanadka uu jiro sheego magac iyo sanadka maamada ay jirtaan sheego iyo child sanadka uu jiro iyo magaciisa. okay inta space aan dhaho intaas aan dhaho intaas aan dhaho intaas aan dhaho. okay ayaka marka kan key waaye kana value waaye. maadaama uu kan key yahay kana value yahay midkaan waxaad dhex gelin kartaa haddana key iyo value kaleeto. value waxaa lasii dhex gelinaa key iyo value. marka aan sameyno waxaan leenahay name. okay name markaa dhahdid kadibna waxaad leedahay magaca kaleeto father waxaa bixina maxamed
okay age-kiisa waxaan leeyahay age-kiisa waxaan leeyahay konton. intaan isoo qabo marka inta ku koobiyey okay tab deh si indentationka u saxmo inta tag intana tab deh si indentation u saxmo. marka waxaan sameyneynaa inaan magacyada ka bedelno kuwan. mother waxaan leeyahay Aisha 40. anigana waxaan leeyahay Ahmed isna wuxuu jiraa 25. okay intaas oo soo dhamaatay. waxaan u baahanaa marka inaan soo aqrino magacyada iyo sanadada ay jiraan. sidaan soo aqrinaa marka soo fiiri. marka koowaad variablekan haysto intaan iska cancelo. variablekan haysto waa family maadaama aan haysto waxaan u baahanaa familyga marka hore kiyaasha ugu soo horeeya oo father, mother iyo child ah inaan soo qabto. marka haddaan rabo inaan soo qabto waa inaa loop isticmaalo oo for loop sida hadday soo qaban. marka waxaan leeyahay for markaa dhaho marka aan rabo loop inaan ku sameeyo waxaan u baahanahay in aan loop ku sameeyo oo aan dul maro ayaga inaan soo aqriyo. marka koowaad waxaan u baahanahay inaan kiyaasha waaweyn soo qabto oo parentiga ah kadibna aan soo qabto kuwa childga ah kadibna aan soo qabto value-yadooda. marka kan aan soo qabto value waa kan value markaa soo qabto kadib waxaan soo qabanayaa kiyadan. haddaba kan soo qabto kiyadan waa haystaa laakiin value sida lagu soo qabanayo ee laftirkeeda waxay rabtaa trick. okay marka waxaan leeyahay waxaa isoo qabtaa parent key. marka koowaad parent key markaa soo qabo maxaa lagu jiraa wuxuu ku jiraa in macnaha meesha ku jiraan soo raadina wuxuu ku jiraa parent keyga inta marka haddaan dhaho in family oo aan dhaho print waa isoo daawici doonaa print. waxaan leeyahay parent key. okay aan fiirino. okay waa la isoo qabtay father, mother, child. father, mother, child maxay yihiin kiyaasha lagu dhex jiraan waxaa u baahanaa. marka haddii aan ka soo qabtay waxaan u baahanaa inaan soo qabto kuwan se kusoo qabanaa. kuwan waxaan kusoo qabanaa inaan dhaho inaan variable temporary samaystaan dhaho family members waxay u shubtaa family oo la dhex geliyay parentkii. okay aan soo daacano marka family members print family members. okay print family members waxay isoo qabtaa hadda marka nameka macnaha waxaa waaya hadda maxamed, Aisha, Axmed saan ugu soo qabtay. hadda saan mara markaan kana hadda inaan ku dul wareegaya noqone waa mid usoo qabto. okay aan aragno hadda laakiin waxaa la isoo qabta name iyo age iyo value-yadooda kii iyo value ugu soo qabtay. aan fiirino marka si wax u dhaceen. markii koowaad parent lagu dul wareegay family ku dhex jiray. family marka kii ku dhex jira lagu dul wareegay haddana waxaa family inta loop lagu dhex jiro waxaa u dhiibay family member waxaa u dhiibay familygii parentkii loo dhiibay. familygii parentkii markii loo dhiibo oo familygan la tago waxaa la tagaa keygan waxa ku dhex jira soo qabanaa haddana keygan waxa ku dhex jira la soo qabanaa keygan haddana childga waxa ku dhex jira la soo qabanaa. marka waxa ku dhex jira name iyo age. okay intaas marka la sameeyo
maxaa rabaa hadda marka sidii hadaaya camal maxaa hadda dhex joogaa family anoo dhex joogo kala tahay waaye markii aan hadda joogo family member marka waxaa leeyahay for kala isticmaala nested loop dhex geliya markaas waxaa leeyahay child key iso qabo child key maxaa waaye child key waxaa waaye hadda keygan waa parent keyganna waa child wuxuu ku dhex jira kan saas darteed child key ugu bixiye in waxaan leeyahay family memberska marka waxaa ku dhex jiray hadda wax ka dhex raadinaya intaana ku dhex jirtay okay family members marka waxaan leeyahay marka intaas dhaho waxaan soo daawacaya labadooda waxaa ku dhex jira horta marka kooda waxaan soo daawacaya child key waxaan leeyahay print child key okay child key hadda intaana haysta okay child key marka intaan haysto waxaan heli karaa inaan soo qaato waxaan soo qaadan karaa hadda waxaa haystaa name age waxaan soo qaban karaa intaan see kusoo qaban karaa waxaan leeyahay intaan waxaan u dhiibayaa child key aan leeyahay waxaan u dhiibayaa family memberska waxaan leeyahay child key igu dhiib marka family memberska waxaa ku jiray intaan dhan marka child keyna waxaa ku jira intaan child key marka intaan ku jirto oo family memberska la dhex galo oo child key loo dhiibo oo soo qabanaya nameka oo soo qabanaya ageka oo toos ah aan fiirino marka okay namekii caadiga agekii laakiin saa ma rabo waxaan rabaa in waxaa la sheegaya ay yihiin father inay yihiin mother inay yihiin child see ku sameynaya waxaan ku sameynaya marka koowaad waxaan leeyahay parent key markaan dhaho waxaan leeyahay plus child key markaan dhaho command leeyahay then aan fiirino marka okay father name macnaha hadda se wax u dhigan yihiin waan ka bedeleynaa qaabka wax u qoran yihiin qalad waaye waxaan leenahay inta meeshaan waxaan leenahay saas intana aanaan leenahay intana saasaan leenahay okay aan garayna marka si fiican ay format garaynay okay father name Muhammad father agekiisa 50 waaye mother nameka Aisha mother ageka 40 waaye child name Ahmed child age 25 waaye marka saas ayuu u sameeyey waxaa kaloo haddaa kusoo dirtid child kan waxaad dhihi kartaa child waxaad dhihi kartaa waxaa kala siin kartaa kan waxaad dhihi kartaa 1 kan waxaad dhihi kartaa 2 okay aan soo akhrina marka soo siin doono marka isla markii la soo akhriyo marka aga baahno inaa waqti kale sii gelisid for loopka ayadaa shaqadeeda gudanaysa marka waxaa kusoo dirtidba waaba sii sameyn doonaa in badan daarabteeda u dhiibi kartaa marka qaybtayni 27 intaas ayaynu eg tahay